runtii muuqaalkan inaan duubo cidii ku qasabtay ma jirto kadib marka xaqa ilaahay tusay baan jeclaystay inaan muuqaalkan duubo. waxaan ahay qofkii hadda ka hor gaaloobay muuqaal asiga oo gaala ahay dhahay soo duubay baan ahay bilowgii sanadkan sanadkii hore 2020. runtii waxaan rabaa inaan muuqaalkan kaga hadlo sababtii marka hore aan u gaaloobay iyo sababtii aan usoo laabtay oo haddana wixii igu kalifay inaan gaaloobo iyo wixii igu kalifay inaan islaamo. waxaa kaloo rabaa halkan inaan kaga hadlo wixii igu kalifay in halkan aan soo gaaro maanta aniga la ii qabsado dacwada ayaaniita dacwadeyda in aniga ku eedeysanahay in ayaaniita aan kufsan rabay amaba ayaaniita aan dil rabay labadaba aan ku eedeysanahay. run ahaantii ma rabo in aan ku dheeraado arrinta ayaaniita ka hadalka sida wuxuu dhacay maxaa yeelay inta badanba ayaaniita ayaa sheegtay oo in ay waxyaabo un ka tagtay mahne oo walaahi arrinta ayaaniita sidaa way kasii daran tahay. ayaaniita nafteeda halis bay gashay walaahi khatar aad xoog badan bay gashay. qof bini aadanna mataqaana aniga mala jeclaan lahayn khatartaas inuu galo, qof cadowgeyga xataa mala jeclaan lahayn inuu khatar noocaasa uu galo. walaahi haddii qof kaleeto uu arrinkaas samey lahay aniga ayaa walaahi jeclaanahay qofkaas inaan dilo, walaahi anaan dili lahay. ayaaniita walaashay oo kaleeto ahayd goor walaashay iga yar oo kaleeto walaahi aad qadriso. ayaaniita wax intaas khatar u gashayna waxaa waayo wax qof bini aadan uusan samayn ayaa samaysay ayaaniita. qof bini aadana ayaaniita aniga isoo dhageysatay anigoo marxaladda isoo dhageystay ku jirin anigoo cid maanta la hadlaysa jirin intii rabto aysa jirin. ayaaniita waxay ahayd qofka keliya aniga dhulka iga qaaday. aniga markaas kuma baraarugsanayn in aniga aan sixranaa oo aan waalnaa, ma ogin aniga markaas. laakiin markii ayaaniita habeenkaas khatarta ay gashay waxaan aniga u haystay in ayaaniita ay ka dambeysay in qof noocaas oo kale aan noqdo aniga. ayaaniita ayaan u malaynayay in aniga mind control igu samaysay ayaaniita in aniga iga aqli baysay ayaaniita in sidaan ay wax u dhigtay. adiga eedeynta badan waxaa dusha ka saaraya ayaaniita. isla habeenkii ayaana ayaaniita dusha ku bilaabay inaan eedeynta dusha ka saaro inta aanan ka tegin. waxa kaliya markaas aniga aan ka tagayo muhiim u yahay waxay ahayd in ayaaniita bad qabto oo ay nooshahay. markaa meesha ka tegay waxa aniga fajac ila ahayd waxa markaas aniga aan controli karin ee qaaday ayaaniita nafteeda aan u gooroway. run ahaantii anigu uma soconin in ayaaniita aan kufsado.